بسم الله الرحمن الرحيم شركة جرايد ما أنت وحنو قبتي مركان أركي قيمه شدالك وعرك يسكو شريري يضو صوبتنا اللي نوشيجين أرنتها سان دوني ما أنت ينصفها فاسان وقهضلو وأوجيدينو صدح برود كهر وزارة الجناع السجع يورشده وحي صو صارتين أمره يوريكتوين lagu xakamaynayo kor u kaca shidaalka Soomaaliland oo dhan ba soo dhaweysay waxay hiil u ahayd qaranka Soomaaliland waxay hiil u ahayd shacbiga Soomaaliland waxay ahayd talaabo wasaaradda ka maqnay inay xakamayso qiimaha shidaalka maadaama iyadu ay mas'uul ka tahay arinta aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay sidoo kale madaxweynuhuna si fiican buu uga hadlay markuu arkay baaqi ka soo baxay bulshada iyo xisbiyada mucaaradkaba maantana tiiteedii baa taagan marka koobaad waxaan aad iyo aad uga xumaa in wareegtadii wasiirku ay shaqayn weydo oo iyadoo wasaaraddii aynaan ka maqal wareegtooyin kale ay soo saartay inay jabiyaan oo la jabiyo oo ganacsatadu jabiso amarradii wasaaradda aad iyo aad baan uga xumahay waxaanan leeyahay wasaaraddu arrintaa waxa ka qabato wasaaraddu arrintaa waxa ka qabato waana dhibaatooyinka marka xeerarka dalka iyo dastuurka aynu dhiganin la jabiyo dhibaatooyinka laga dhaxlay tahay marka cid kooto loogu xidho shidaalka ee la yiraahdo cidaas ay kooto ugu xidhan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlay way arrintan waxay dhibaato ku tahay qaranka waxay dhibaato ku tahay shacbiga waxay dhibaato gaar ah ku tahay dadkeena masaakiinta ah ama bulshada inteeda u badan ayay dhibaato ku tahay waxaan maalin dhaw arkayay iyadoo xukuumaddeenu xirxiraysa dad masaakiina oo makhaayada haysta oo 500 shaaha ku daray waa maxay sababta ninka ganacsada ah ee lacagta haystana xukuumaddeenu talaabo uga qaadi laadahay dadka masaakiinta ee hooseeyana loo xirxiraya marka qiimaha shidaalka la kiciyo sokorta lagu kiciyo de ka shaaha joogaana uu kicinaya ma taageersan in la kiciyo shaaha iyo ma taageersan macnaheedu maaha inaan taageersanahay caynka laakiin tusaale ma soo qaadanaya waxaan leeyahay xukuumaddeenu yaanay ka adkaanin dadka masaakiinta nimanka ganacsatada ana yaanay u muuqan inay ka adag yihiin arrintaa waxaan leenahay xukuumaddu degdeg waxa uga qabato shidaalku waxa uu daaraa ama uu mas'uul ka yahay quudatul daruuriga oo dhan buu mas'uul ka yahay haddii shidaalku kaco dhammaan maciishadeenna cirka isku shareeraysa waa mid runa waa mid dhab ah imika waxaynu ka dareemaynaa suuqeeni in maciishadii kor u kacday wax la aqbali kara maaha aqliga fayow wuxuu qaadan kara maaha in bil gudaheed 4 jeer shidaalku kor u kaco imika 7 bishii shanaad 2021 iyo 21 bishii shanaad 2022 iyo 19 bishii lixaad 2022 iyo 28 bishii lixaad 2021 intaaba shidaalku uu kacay kor buu sii socdaa wasaaraddeenu way arkaysaa kuma noola qurbe dalkay dhex joogtaa sababtay u daawanaysaa nagu garan mayno waxaan waa mas'uuliyad sababta ay mushaharka u qaataan waxa weeye ay qaranka ugu shaqeynayaan inay ilaaliyaan shaqadooda kow waxa ka aynay ilaaliyaan maciishada dalka shidaalku kow ka yahay waayo haddii shidaalka wax lagu daro waxa kale oo dhan way kacayaan arrintaa waxaan leenahay oonu baaq u diraynaa madaxweynaha waxaanu baaq u diraynaa wasaaradda shaqada leh waxaan leenahay arrintaa degdeg waxa looga qabto arrintaa degdeg waxa looga qabto wasaaraddu ha xakamayso ganacsatada shidaalka keenta oo awr dabar la'aan dhacaya waxa ka qabataan leenahay arrintaas waxay dhibaysaa dadkeena waxaan aaminsanahay
sababtan idin sheegay waxaan aaminsanahay anigu fikriyan Yuusuf ahaan waxaan aaminsanahay inay xilligan kala guurka la doonayay in laga faa'iideysto maaragtay lagu jiro xil wareejinaha iyo in laga faa'iideysto arrintaa waxaan leenahay xukuumaddu way jirtaa waxa ka qabataan leen waliba cidda shaqada leh degdeg arrintaa wax uga qabato. Wassalaamu calaykum.